سمع حاجة بوجا طبعا ومنقرض مركز الواجن ده ولا بحرف يجوا بال أدرسوا كل هران وملاينا ناس في عن وجاه الله وسوكو بيا مان يجرد ولا بحرف سوكه مان جرشوا marka la yamaan iyo garad maan waa maskaxdii iyo garashadii labada ayaa isu keenay ba macnaha ka soo baxaya maskaxdayda waxay garatay inaan waxa sameyn karayo suugaan urin karayo fikir cusub bulshada ku soo kordhin karayo marka waa maan garasho maan garad xagga la ka keenay طبعا labadiina boog runtii way ku qoran yihiin waa Soomaali tan Soomaaliga waa kii asalka ahaa runtii saxda ah marka dadka la sheekaysataan marka heerka maanta uu marayo af Soomaaliga in runtii deedaha inaga saarno wada ogna dhamaantayda marka ma la oran karaa jiilka hadda soo kacaya ee runtii buwaagtan qoraya afkeena ay ku qoraya afkeena burburi uu helan karaa qaadin runtii si fiican meel fiican ka abartay Idris anigu waxaan aaminsanahay shakhsi ahaan in qofka Soomaaliga ah buug qaro uu door weyn ka ciyaaray inuu ilaaliyo xifdiyo afka Soomaaliga tusaale ahaan dhibaatooyinka dadka qorayaasha qabsada waxaa ka mid ah af Soomaaligii wax badan laguma sameeyay 72 ugu dambeysay in af Soomaaliga la qoro dib loo fiiriyo oo la habeeyo wax badan waa ka maqan af Soomaaliga ereyo cusub hadda dunida ku soo biiray oo aha teknolojiyada ama waxyaalo noocaas oo kale marka waxa u baahan yahay in Soomaali laga dhigo qofku markuu buug qorayo waxa laga yaabaa erey Soomaali English uu yaqaan inuu Soomaali u waayo muddo ku qaadanaysa inuu raadiyo ama dadka la saaxiibka ah in khabiirna ku ah Soomaaliga inuu la kaashado ereyga macnihiisa soo weydiiyo waxay ila tahay inay muhiim tahay in wax la qoro muhiimna ay u sii tahay in Soomaaliga iyo afkeena hooyo lagu ilaaliyo tusaale waxa kugu filan hadda walaalkay Warsame wuxuu qoray suugaan ku jirta buugis in badan aan akhriyo suugaantaasi waxay macno u sameynaysaa jiilka soo kacay isleeyin waxaan af Soomaali ma ahan af Soomaalida ka waaweyn waaye macnihiisa iyo wixiisa raadi marka qofku wuxuu dareemi karaa marka dadweyne Soomaali ah inay jirto badda Hindiya leh markaas uu dhex raadinaa dhex tibaahan laakiin hadii afka ciyaalka xaafada iyo waxaan hadda la bedelo Ingiriiska lagu dhex qalday oo qofku la bartay inuu isticmaalo isleeyahay af Soomaali raqiisa ku agyaalo mar walba kaas uu damcaa inuu adeegsado aad ma maasanta Faaduma daawadayaal wali waxa daawanaysaan barnaamijkii gaarka ah ayaan ugu dabaaldegayno munaasabada Eidul Adha waana barnaamij gaar ah runtii ayaan ugu magac darnay wiilinta afka hooyo ee Soomaaliya waxa ka qayb galay Faaduma Cabdi Cali sidoo kale Warsame Cumar Xuseen runtii aan ugu mahadnaqay runtii waqtigooda qaaliga ay u horeen annagu runtii in ciidu runtii ay mashquul yihiin inay naga ogolaadaan runtii inaan barnaamijkan ka qaadno su'aasha aan weydiiyay Faaduma runtii baan ku weydiinay Warsame kama foga buugan ay wada qorteen Soomaaliya ku qoran bal kaalin inta lagu ka qaadan kara runtii Soomaaliga وسؤال هذا هو نفسه عدروسه لوقت هذا أنت سؤال شدني خالته كقاعدان كرايو دائرتان ربنا نغير الشيء دائرتان مدعونا يسوع هذا اللوقت هذا أرجع اللوقت أفمالك علم اللوقتها برتاي أما إنجليزي هبرتا أما طلياني هبرتا أما صومالي هبرتا أما عربي هبرتا وحكوا فسران لوقت مكلده وشيء دوق ay isku fahmi karayaan qof laba qof ama xayawaan taasoo keento inay saarkaan isu imaadaan luqadda Soomaaliga iyo buugaygu wuxuu ku siyaadin karay buugaygu waa buug sugaameed waxa laga dhaxli karayaa erey mahmaah noqon karay hal qabsi baa laga dhaxli karayaa erey baa laga dhaxli karayaa maanta markaad buug akhriso waxa laga yaabaa inaad ku aragto erey kugu cusub adiga oo aadan weliga arag oo Soomaaliya kugu cusub laakiin jumlada markaad ku fasirato ereyga macnihiisa laakiin erey la macnaad garanaysa laakiin kan oo ka sii macaan yahay baranaysa wuxuu ku soo kordhin karayaa baan leeyahay horta kamo erey cusub aan soo kordhiyay kuma jiro Soomaaliya laakiin daayirtu markay akhriyaan wuxuu faa'iideynaya horta inuu luqadiisi wax ku akhrin karo si fiican u akhrin karo iskuulaad manhajkeenu Soomaali ma ahan goobo wax lagu akhriyo oo library public ama lihin marka wuxuu siyaadin karayaa baan leeyahay kow in akhriskii bartaan Soomaaliga dhalinyartay bartaan akhris Soomaali
akhrisku markuu qofka si fiican u barto wax badan akhriyo uu wax u qori karaya markay akhriyaan oy soomaaliga akhriska si fiican u bartaan kii ay suugaan ku duugnayd cabir miisaanka suugaanta buu ka qaadan karaya oo suugaantu miisaan bay leedahay gabayga ugu weyn ma inta kasoo harta geeraarka jiiftada cabir maansoodka miisaankoo la dejiyey soomaaligana way ka qaadan karayaan maasleedhageerada waa maxsantaa warsame faadon dabcan waxay sheegtay maqaalo runtii fara badan inaad qortay waan arkay xitaa wargeysada qaar runtii muqdisho kasoo baxa inaa runtii lagu daabacay buuggan aa soo saartay imise kugu qaadatay runtii ma hawl yara dabcan saa hore kuu weydiid imise kugu qaadatay inuu soo baxo dadka la wadaagto waa mahadsantahay Caydaruus buugga qoridiisa weliba af Soomaali inaad ku qorto weliba waxaan hore wax loogu qorin inaad ku qorto waxaan rabaa inaan wax yar ka taabto mawduuca markaan qaadanayay dhiirigelinta ah inta badan dhalinyaro Soomaaliyeed waxaan arkay internetyada iyo YouTube-yada ay ka raadinaysa mawduucyo dhiirigelin ah ama inta badan waxay geliyaan motivation ay raadiyaan kadib Les Brown iyo waxyaalo noocaas ah daawadan dadka ku caan baxay motivationka dunida halka Soomaaliyana Maxamed Cumar kaliya uu ka yahay qofka dhiirigeliyaha Maxamed Cumar oo macadka hogaaminta nafta in hogaamiyo doorama ku leh marka waxaan istusay inay dhalinyaro badan buugga ka faa'iidi karaan haddii Soomaali loogu qoro loo soo dhaweeyo inta igu qaadatay waxay tahay waxa ugu adag waxay tahay inaad mawduuc horta loo baahan yahay bulshadana baahi u qabto inaad dooratid waa waxa kuugu muhiimsan oo waqti badan kaa qaadanayso labo meelihii aad wax ka qori lahayd iyo inaad xog soo aruursatid waxay qaadanaysaa iyaduna waqti kaleeto buugga markaad qoristiisa iyo inaad computer ku qorto waa wax iska fudud waaye ama ereyadii inaad saxitaankii iyo sidii qoritaankii inay ku saxnaato laakiin timeka ama waqtiga ugu badan wuxuu iga galay inaan xog aruurin sameeyo suugaantii Soomaalida ee waxaan ku siintay dadka dhiirigelin jirtay inaan soo qaato sidii Hadraawi oo kale iyo dad kale oo tiro badan waxaasoo dhan markaan soo aruuriyey oo ii fududaanaysa inaan qoro buuggii aan rabay ama aan jeclaa inaan soo saaro marka 2014 aan aniga buuggan hamigiisa ugu dhashay inaan qoro mawduuciisana ilaa waqtigaasaan haystay laakiin 2015 ilaa aduu 6 bilood 7 bilood muddo ku dhow ay igu qaadatay inaan ku qoro gebi ahaantiis buugga aad soo saartay waa saddex qodob su-aasha xigtaan weydiinaya runtii waa warsame dabcan barnaamijku waa barnaamij gaar ah runtii oo aan ciida ugu dabaaldegayna si gaar ah runtii uhilinta afkeena hore runtii baan ugu magac darnay afkeena Soomaaliga imise qof baa ku hadashay Caydaruus waa su'aal fiican afka Soomaaliga haddaan deegaameeyo ama goboleeyo shanta Soomaaliyeed wixii isku oran jiray baa looga hadli jiray dadka ku hadla luqadda Soomaaliga waxaa lagu qiyaasaa 15,000 ilaa 20,000 markaan shanta Soomaaliyeed si kala qaadno meelaha jiro shacabkiisu ay ku hadlaan haddaan Djibouti kasoo bilowno Djibouti laba luqadood baa laga hadlaa Faransiiska iyo Soomaaliga iyo luqado badan baa laga laakiin laba luqadood tan koowaad iyo tan labaad waa Faransiiska xafartu waa tan saddexaad marka labadaa baa luqadood baa waddanka looga hadlaa luqaddu markay dawladda isticmaalayso oo waxbarashada lagu isticmaalayo bay awood yeelataa Djibouti oo kale xafiisyada dawladda Faransiiska baa ka shaqeeya bulshada baa ku wadaasha Soomaaliga aadna oo ma sii badna markaan imaano Ethiopia kaliya shanaad xafiisyada dawladda waxa loo isticmaalo waa luqadda Amxaariga bulshada baa ku wadaasha manhaj wax Soomaali aan ma jiro bulshada yaroo meesha degan baa isticmaasho ku hadasho gobolada waqooyi markaan imaano waa la isticmaalaa bulshada si fiican bay ugu hadashaa laakiin waxbarashaduna waa iska manhajka caadiga Soomaalida maanta oo luqadda Ingiriiska iyo Carabiga Ingiriiska waliba laakiin xarumaha dawladda inta badan Ingiriiska la isticmaalaa inkastoo aan boqolkiiba intay ka tahay aan si xaqiijin karin laakiin Ingiriiska la isticmaalaa markaan imaano Muqdisho iyo Koonfurta xarumaha dawladda boqolkiiba boqol waxa laga isticmaalaa luqadda Ingiriiska manhajka jaamacadaha iyo iskuulaadkuna waa English bulshada baa af suuqeeda adeegsato NFD baa soo hartay NFD markaan tagna luqadda koobaad waa English iyo Swahili luqadda caadiga oo dawladdu isticmaashana waa English marka halka waxa ka muuqanayso isticmaal luqadda Soomaaliga
oo si saa'id ah loo isticmaalo isku jira ku hadalka bulshada marka laga soo tago oo wax markay dawladda qorto xafiis dawladeed ka soo baxo oo booliiska isticmaalo cid kasta isticmaasho xafiis dawladda dhan la isticmaalo bay luuqadda hore u socotaa ee horumartaa laakiin maanta ma muuqanayso oo xafiisyada dawladda luuqadda ingiriiska laga isticmaalaa manhajkiina jaamacadihiina iyo iskuulaadkiina waa english marka bulshada soomaaliyeed oo la dhaho boqolkiiba bulshada boqolkiiba 25 boqolkiiba 30 qurbaha jira haddana oo dadka qurbaha joogay kuwii ku dhashay oo waaweynaa maahan intii kale oo ay sii dhaleen dadkii meesha ku tarmay soomaali kuma hadlaan english bay ku hadlaan marka waxaan oran karayaa celcelis bulshada soomaaliyeed waxaa dadka ku hadla luuqadda waa 15,000 ilaa 20,000 oo bulshada af suuqa adeegsata laakiin xarumo waxbarasho dawladda laga adeegsan marka maasanta runtii aad baan kaga mahadnaqayaa runtii sidaa noogu sharaxdo noogu kala dhigtay faaduma ku laabanaya runtii faaduma way waa la soconnaa marxaladda runtii dalkeena uu ku jiro runtii sidoo kale afkeena halkuu marayo in waxyaaba badan runtii ay naga dhiman yihiin jiilka hadda soo kacaya runtii ee sidaan daacadda uga ah ama u helan inay wax qoraan wax hagaajiyaan ka waran haybadeynay burburtay laga yaaba inay soo celiyaan عيدروس هذا ضمانة سنتهاي سلوك على ولكن أول ما تعلنا وصلنا سوق فثاي الصومالي استعمال كسوق سيرانا محرمة أن صوماليا هيبدأ إلى هاي ومد واحد لو قرط أما أستانوا وهرت لو قد يدواي هذه لو قد عن كتر نما أنه إثيوبيا كواحد كل دونا منها